shantii bishii Diseembar ee sanadkii 1980 waxay ahayd maalin taariikhi ah waxayna astaan u noqotay aasaaska jaamacad ka duwan jaamacadaha kale ee dunida iyadoo loo maraya qaraar tirsigiisu ahaa 35 ayaa golaha loo wada dhan yahay ee qaramada midoobay wuxuu cod aqlabeed ku ansixiyay in la unko jaamacadda nabadda ee qaramada midoobay loona soo gaabshay UBS Costa Rica oo ah waddan ku yaala bartamaha Ameerika ayaa door weyn ka qaatay hindisaha jaamacaddaasi waddanka Costa Rica waa waddan dhaqankiisu ahaa inuu mar walba ka shaqeeyo xuquuqda aadanaha iyo nabadeynta 1980kii waxaa la isku raacay in Costa Rica laga aasaaso jaamacadda nabadda markaana uu madaxweyne waddanka ka ahaa Rodrigo Corazzo kambaska weyn oo jaamacadda oo ku yaala Costa Rica loogu magac daray madaxweynaha citizens of Somalia 42 sano kadib jaamacaddu waxay noqotay mid caalami ah waxayna ku faaftay adduunka oo dhan iyadoo laama ku yeelatay qaaradaha adduunka oo dhan ay ku jirta qaaradda Afrika ku soo dhawaada documentary-gan aynu ku eegi doono horumarka iyo guulaha ay jaamacadda UBS ka gaadhay Soomaaliya iyo doorka hormuudka ay ku leedahay tayeynta iyo jihaynta madaxda mustaqbalka Soomaaliya saamaynta nabadda iyo dawlad wanaagga Soomaaliya oo ah waddan si tartiib ah uga soo kabanaya 10 sano oo dagaal sokeeya If UBS should be anywhere in Africa, it has to be Somalia. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa taariikhda galay kadib markii uu noqday madaxweynihii ugu horeeyay ee Soomaaliya oo dalka gudihiisa ku qaata waxbarasho heer sare madaxweynaha ayaa la guddoonsiin doonaa shahaadada PhD-ga kadib markii uu dhammaystay koorsada nabadda dawlad wanaag iyo horumarka uu ka qaatay jaamacadda UBS ee Soomaaliya waxaa inta badan dhiirigelin u ah siyaasiyiinta gaar ahaan dhalinyarada hadda soo korayso in madaxweynaha qaranka uu ka mid yahay runtii ardayda jaamacadda hadda ka qalin jabisay iyo siyaasiyiin badan oo runtii role model runtii dhalinyaradan u noqon karo role model si ay runtii maaragtay jaamacadda hore ugu sii wataan isla tallaabo kale oo taariikhi ah Soomaaliya waxay sanadkan saxiixday xeerka ka mid noqoshada jaamacadda UBS bishii Sebtembar ee sanadkan 2022 madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa saxiixay axdiga Soomaaliyana waxay noqotay waddankii 42 ee ku biiray axdigaasi waxay ka micno tahay in Soomaaliya hadda ay loo aqoonsaday inay tahay wadamada adduunka weynaha ka mid ah oo jaamacadda ay daraasaadkeedii iyo cilmi baaristeedii si rasmi ah looga wadi karo ardayda Soomaaliyeedna ay gool u tahay in loo balan qaaday iyadana xataa qiimo dhimis xagga waxbarashada markii labaad ay jaamacaddu waxay qabanaysaa xaflad qalin jabina sanadkii la soo dhaafay ku dhawaad 100 arday ayaa ka qalin jabisay jaamacadda waxaana la guddoonsiiyay shahaadada masterka Education transforms lives and it really is the foundation of bringing people together, of learning to understand one another, of solving problems together, finding ways to move forward together. We are in one of the most challenged country in Africa. Somalia is the beginning of UP's real work in Africa. aasaaska jaamacadda UBS ee magaalada Muqdisho ayaa fursad weyn u ahayd arday badan oo Soomaaliyeed oo markii hore u dhoofi jirtay dalka dibaddiisa si ay u qaataan shahaadooyinka masterka iyo PhD-ga UBS waxay xarunteeda Afrika ka furatay Addis Ababa sanadii 2002 asxaab badan oo aniga aan aqaana waxay u aaday Addis qarash badan kaga baxay way u dhibaatoodeen sababtoo ah ka fakar marka lagu yiraahdo 2 week 2 sitimaan ama 2 isbuuc xamar soo joog oo waxaad soo samaysaa paper ka soo shaqee mawduuc ka soo fakaro ka soo hadalo soo dir oo hadhowne soo ku soo noqo Addis Ababa 2 isbuucna magaalada Addis Ababa ku noolow oo jaamacaddii ma aragtay class ahaan u aad markii lagu yiraahdo aad ay u adag tahay runtii Soomaaliya waxay si tartiib ah uga soo kabanaysaa 30 sano oo dagaal sokeeya burbur iyo isla xisaabtan la'aan ka dhashay burburkii dawladdii dhexe ee horaantii 90-maadkii
conflictigaasna ma aragtaa in xal loo helo oo peace building laga shaqeeyo oo dalka la nabadeeyo qayb weyn ay waxay ka qaadanaysaa shaqadii aan haynay iyo duruustii cilmigii aan jaamacad ka baranay qayb weyn waxay ka qaadanaysaa naga caawinaysaa shaqadii aan ku guda jirnay oo peace building iyo dawlad wanaagga ahayd dawlad wanaagga oo aad baahideeda ay u taagan tahay Soomaaliya jaamacadani waxay ahmiyad gaar ah ay u sii leedahay dumarka iyagoo guryahoodii jooga shaqadoodina wata hawlahoodii shaqo iyo hawlahoodii faamilina wata waxay fursad u heleen in iyagoo dalkii jooga ay wax ka bartaan jaamacadda nabadda ee qaramada midoobay iyadoo ka faa'iideysanaysa xasiloonida iyo nabadda sii kordhaysa jaamacadda UBIS waxay xarunteeda Muqdisho ka hirgelisay dabayaaqadii sanadkii 2018 afartankii sano ee la soo dhaafay ee jaamacadda UBIS ay jirtay waxaa ka qalin jibiyay tiro ah 2000 Soomaaliyana afartaa sano gudaheeda waxaa ka qalin jibiyay tiro arday ku dhow 200 marka waa la dareemi karaa asaamiga ay Soomaaliya ku leedahay muddada gaaban wax ka yar 2 sano kadib markii la aasaasay jaamacadda cudurka COVID ayaa saameeyay dunida taasoo keentay in la xayiro isu socodka iyo sidoo kale in la joojiyo cashiradii foolka ahaa laakiin adeegsiga tiknoolajiyadda casriga ayaa u sahashay ardayda inay sii wataan waxbarashadooda runtii qofka markuu ku maqla jaamacad iyo class waxa ku soo dhacay maskaxdiisa runtii inuu class attend gareeyo busy ku noqdo shaqadiisa saameeyso runtii howlay dhammaan ay noloshiisa dhammaan ay soo xirmaan laakiin taas waa ka duwan tahay runtii jaamacaddan nabadda ee qaramada midoobay waxay noo fududeysay annagoo shaqadii ku jirno shaqadeena wadano waliba shaqo adag ku jirno oo xaalad Soomaaliya lagu shaqeynaya siyaasadda iska dhib badan tahay xaalad amni inay runtii noo fududeyso inaan casharadeena qaadano imtixaanaadkeena qaadano iyadoo jaamacaddu ku tallaabsatay horumarro wax ku oola ayaa waxay qorsheynaysaa inay aasaaso xaruntii ugu horreysay cilmi baaris la xiriidha cunnayarida iyo wax ka qabashada saamaynta isbeddelka cimilada waxaa la rajaynayaa in xaruntaasi soo saarto daraasaad wax ku oola oo gacan ka geysta wax ka qabashada mushkiladaha cunnayarida gobolka Geeska Afrika horumarka laga gaaray waxaa ka mid ah in jaamacadda ay muddada gaaban heshiisyo la gashay hay'ado caalami ah oo ay ka mid tahay hay'adda qaramada midoobay ee qaxootiga waxaa Soomaaliya hadda laga aasaasayaa xarun weyn oo food security taasina waxay iyaduna ka mid tahay horumarka ay jaamacadda gaartay muddada gaaban iyadoo ay socdaan dadaalada dib u dhiska dalka jaamacadda UBIS ayaa sidoo kale kaalinteeda ka qaadanaysa tababaridda madaxda mustaqbalka ee Soomaaliya waxaan bartay disaster resilience leadership iyo humanitarian action wuxuu barnaamij wax badan aan ka faa'iiday shakhsiyan hore waxa u soo noqday oo aan soo maamulay degmada Hodan oo aan gudoomiye ka soo ahaa oo aan ognahay xilligii 14 October ay dhacayso kale inaan gudoomiyaha degmada ka ahaa qatar weyn ay ka dhacday waxaan aaminsanahay xilligaas wixii hadda aan ka bartay jaamacadda haddii xilligaas aan ka baran lahaa wax badan inay ii sahli lahayd haddii aan noqon lahayd hoggaanka emergency-ga ama musiibadaas meeshaas ka dhacday programka anigu aan bartay waxa weeyaan environment peace and development runtii cilmiga aan ka bartay jaamacadda UBIS iyo shaqada aan ka shaqeeyaa runtii way isleeyihiin waxayna waxa ku kordhinaysaa runtii shaqada aan ka shaqeeyo waxaan ka shaqeeyo hadda waxa weeyaan waa natural resource management gaar ahaan oil and gas baan ka shaqeynaa cilmiga aan bartay environmentku marka waxa waa qayb aad u lixaad leh ama qayb muhiim ah oo kamid ah runtii shaqada hadda aan ka shaqeyno waddanka Soomaaliya waa waddan colaad ka soo kabanaya wuxuu u baahan yahay dad Soomaali ah oo dadkii dalka lahaa ah oo si fiican loo qalabeeyay wax bartay waaqica gudaha ka jira aad u garanaya haddana lagu hubeeyay xirfado kale oo ma garanaysaa caawinaya inay Soomaaliya si dhab ah uga soo kabato khilaafaadkii iyo colaadihii ragaadiyay muddo 30 sano ah waxaa la rajaynayaa in koorsooyinka lagu bixiyo jaamacadda ay gacan ka geystaan sidii loo soo saari lahaa aqoon-yahano waxgarad iyo madax ka shaqayn doonta xalinta khilaafaadka iyo suurtagelinta mustaqbal wanaagsan